madaxweyne halkan waxa maanta ardayda dalka u fadhiisanaysa dugsiyada dhexe waxa weeye 25 kun oo arday ayaa dugsiyada dhexe imtixaanka u fadhiisanaysa dalka oo dhan dugsiyada sarena waxa u fadhiisanaya 16 kun oo arday ba iyagana u fadhiisanaya dugsiyada sare waxa iskugu jiraan dugsiyadii farsamada gacanta oo iyagana imtixaankaanu ka qaadayno dugsiga beeraha burco waxa kale oo sanadkan ku jira ardayda imtixaan ka qaadayno indhoolayaal laba arday oo idhoolayaal ku jira oo imtixaanka si heer caalami ah uga qaadayno runtii awal dagoolayaashu iyagu sanad walba way nala galaan taawaanu waligood way jirtay waxa sanadka Soomaaliland guul ah in idhoolayaasheena hadda kadib ay dadka la mid noqonayaan oo imtixaanka qaranka ay gali doonaan haduu Ilaahay idhaa waxa ka qayb qaadanaya tirakood ciidanka ka qayb qaadanaya marka nabadgelyada la yiraahdo runtii oo waliba jecel aad iyo aad madaxweyne ugu mahad celiyo ciidanka bilayska oo runtii aan oran karo hadaan iyaga la'aantood imtixaanaadku sidoo noogu hirgalay way adkaan lahayd dalka oo dhan marka la yiraahdo ilaa 600 oo askari baa ka qayb galaya oo ina ku jirin waliba kuwa gurmadkii inta ku qoran goobaha waxa ka qayb galaya ilaa 300 iyo gaadiidka ah imtixaanaadka qaada waxa ka qayb galaya ilaa 325 ah supervisorska waxana runtii aan kaloon madaxweyne kula socodsiinaya sidoo wasiirkuna uu ka warhayaa awal hay'adaha imtixaanaadka gacanta inoogu hayn jiray ama dhaqaale inaga siin jiray waxa weey laakiin imka shirin ay ku leeyihiin ma jirto miisaaniyada waxa soo dhan ku baxayaan qaranka Soomaaliland baa bixiyay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qaranka Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa kale aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda maaliyadda runtii oo wasiirka iyo xisaabiyaha guud iyo haba kala reebin waxa kale aad iyo aad madaxweyne ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada runtii oo iyaduna stakeholderka koowaad ah aad iyo aadna noogu fududeysay waxa ka qayb qaadaya shaqaalaheena waxa weeye runtii waa shaqaalihii wasaaradda waxbarashada bismillaahir rahmaanir rahiim mudane madaxweyne waxa lagu galiyaa wadanka oo dhan 300 oo goobood sida la sheegay in 41 kun oo arday baa ka qayb galaya 700 oo ciidanka ilaalada ah baa naga qayb galaya marka waxaan rajaynaynaa inuu si fiican ugu dhamaado 14 gobolba waa lagu galiyaa marka laga reebo meelihii gaarka ah ee golaha wasiiradu ay go'aamiyeen in madaxweynuhu gudoominaya ay go'aamiyeen in sidooda loo gudbiyo ku soo dhaw madaxweyne bismillaahir rahmaanir rahiim salaam kadib horta waan idin ducaynaya dhammaan ardayda gelaysa imtixaanku wuu iska dhib badan yahay ardayda iyagoo waxay garanayaan haddana maalintaa ma quraacdaan oo habeenkii aad weer socdaan oo waa la soo wada maray laakiin imtixaanku wuxuu la mid yahay casharadii kale oo kale waxa weyn ma aha haddii wax kaa qaldaana beritaan la saxayaa caruurta inay ka baqdaan ma aha warar badan ha gelina waliba hablaha waxba ma wuxuu la mid yahay duruusta soo galeyseen hadduu mid qaldamo berita waa la saxi karaa waxaan kulka dhammaan ardayda u rajeynaya imtixaanka inay ku guuleystaan waxaan baleynaya wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan qaranka Soomaaliland oo dhan horumar weyn sameeyay intaas oo arday oo u gudbayso tacliinta halkii uu joogo midka ku xiga secondary hadduu jaamacad buu gudbayaa hadduu sideedaha secondary buu gudbayaa waa horumar weyn dalka ka socda marka waa idinku ducaynayna qaranka dhan waa hambalyeynaya ee ogaadana wadada haysan baritum baasan macallimiintiina iyo hablaha ay taagan san ba baritum macallimiin noqonaysa wax weyn ma aha anoo shalay baahid markii dadkan wada yaraaye ma daawad ka galka weyn leeyahay wada cadi shalay buu isbaartay haado waxaan wax weyn ma idinku faraxsan dhamaantiin oo warwar qabin imtixaanka gala oo kalsooni qaba bariisa isku wareerina insha Allah wada baasaysaan mustaqbalkana guul wada gaaraysa ama dhalinyarada